بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها قرنك جمهورية السومالان مدن موسى بيحي عبدي وزيرka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee madaxtooyada gudoomiyaha xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka labada xisbiga kulmiye barasaabka dhammaan marti sharafta iyo taliyaha ciidanka ingiliiska aad iyo aad baan iisoo dhaweynaya sharaf weyn bay noo tahay mudan madaxweyne inaad markii afaraad aada soo booqato wasaaradda waxbarashada markastoo runtii timaadana iyadoo horumar iyo lagu tallaabsaday guulo waaweyn sida kuwa maanta aad markaa markhaati ka tahay baad la timaadaa ujeedooyinka xafladda runtii loo qabtay waxa weeyaan inaan soo bandhigno dugsiyo la dhisay oo laga dhisay markaa canshuurta laga ururiyo markaa muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan iyo markaa dugsiyo kale ay nagu caawiyeen qaadaan-bixiyaasha markaa nagala shaqeeya waxbarashada horumarinteeda oo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayno sida wanaagsan ay noola shaqeeyaan hadday yihiin global partnership for education GBE iyo EU oo markaa deeq-bixiyaasha ama qaadaan-bixiyaasha waxbarashada taageere ugu waaweyn iyo ECW si gaar iyagana hay-adaha inoola shaqeeya hadday yihiin markaa hay-adda Save the Children oonu si gaar u mahadnaqayno iyo hay-adda care iyo hay-adaha kale markaa UNICEF ka mid tahay inay nagala shaqeeya waxbarashada laakiin mahadnaqa ugu weyn marka xagga ilaahay laga yimaado waxaa iskale markaa muwaadiniinta reer somaliland ugu horeysa markaa islaanta tamaandhada ku iibinaysa suuqa askariga markaa tuqarar jooga macalinka tawaashiirta sitee markaa dhaska isagoo sanka ka gelaya haddana canshuur laga jaro iyo qof kastoo muwaadino reer somaliland oo canshuurtiisa hore inu qaranka ku horumariyo markastoo inu canshuurta bixino waxay noo soo kordhaya markaa dhismayaasha quruxda badan leh ee bulshada lagu adeegayo kuwa markaa waxbarashada lagu baranayo meelaha caafimaadka markaa lagu horumarinayo saldhigyo markaa amniga lagu ilaalinayo iyo waddooyinka quruxda badan leh ee qarankeena maanta uu yeeshay ayaa canshuurta inoo soo kordhinaysa marka muwaadiniinta waxaan ku dhiirigelin inay canshuurta sii kordhiyaan si adeega la bixinayaana markaa usii kordho mudane madaxweyne wasaaradda waxbarashada waxay qaranka ugu xil saaran tahay ama aada u igmatay inay gaadhsiiso muwaadiniinta reer somaliland dhan adeeg waxbarasho oo tayo leh iyadoo taa laga duulayo iminka dugsiyada hoose dhexe waxaa noogu jira 330 kun oo arday baa markaa inoo dhigta oo habliyi wiilala dugsiyada sare waxaa inoo dhigtay ilaa 60 kun oo arday dhammaantood markaa waxay helaan markaa waxbarasho oo ay tii xaq ay u lahaayeen oo dastuurka markaasi meelaha qaar waxaa laga yaabaa markaa adeega ay gaadhaa inaanu kii heerkii loogu talagalay xagga tayada ahayn laakiin anagu waxaan ku dadaalnaa markaa arday kasta meeshu joogo in waxbarasho lagu geeyo insha allahu tacaalana waxaa qorshaysan in sanad kasta markaa ugu yaraan 100 iskuul la dhiso si markaa in ka badan 100 kun oo arday sanad kasta markaa ay usoo galaan waxbarasho a marka hore waxbarasho heli jira waxaa kaloo markaa jirta in sanadkan u qaybinay madaxweyne dhammaan arday kastoo dugsiga hoose dhexe dhigta gaar ahaan ardayda dugsiyada dowladda buugga wax ku barto oo idana laga iibiyey markaa miisaaniyaddeena qaranka qayb yaroo ka midna markaa naga taakuliyey markaa eedaha nala shaqeeya sanadkii horena waa la iibiyey sanadkii kasii horeyna waa la iibiyey markaa 3 sano xukuumaddaada jirtay bugaagta markaa si joogtaa ayaynu iibinayna insha allah sanadka dambana ardayda dugsiyada sare iyo kuwa dhexe o dhan waa loo iibin doonaa sanadkan saa la sheegayo waxay maanta markaa ku daafuraynaa qalabka casriga ee teknolojiyadda la socda oo markaa taablada cadeeda ku shaqeynaya ay ku jiraan markaa casharadii la duubay oo macalinkii oo hadlaya oo maqalaya muuqaala ay la socota xataa dadka baahiyaha gaarka ah qofka haddaanu dhagaha si fiican xooga maqlayn qof turjumaya oo luuqadii u fahmayay kula hadlaya ayaa ku duuban marka arday kastoo reer somaliland gaar ahaan kuwa miiga imika lagu bilaabaya insha allahu tacaala ardayda xataa guryaha iska joogta ayaa horta ka faa'iideysan doonta waxaa kaloo jira markaa barnaamijkan TV-ga oo isna si joogtaa markaa 24 hours u socon doona oo waxbarashada u gaara wasaaradda warfaafinta ugu mahadnaqaynaa oo channelka inoo samaysay casharadiina markaa wasaaradda waxbarashada diyaarisay baa ay ku shubaysaa
markaa ujeedadu waxay tahay meelaha miyiga oo kale ardayda subaxii shaqeynaysa tusaale ahaan inanka ama gaadhi maydhaya ama waalidkii caawinaya ama gabadha gurigooda ka shaqeysa gelinka hore fiidkeeda t v ka daawato markaa casharada waxaa kaloo jira markaa isna barnaamij kale oo isagoo aan ku shaqeynayn markaa t v-ga laakiin aan ku shaqeynayn channel oo ah in t v-gii oo casharada ku jiraan oo shaashadoo kalaasada ku aragtaan loogu xidhayo markaa iskuolka isaga markaa waxaa laga wadalaya meelaha iminka caqabad naga haysata waxaa kamid ah macalimiinta sayniska iyo kuwa xisaabta oo ku yaryihin markaa dalkeena gaar ahaan macalinka tababaran ee tayada leh arday tayala soo saari kara markaa macalinka oo diyaarsan oo t v oo hadlaya ayaa markaa ku jira iskuullada markaa macalimiinta ku yar yihiin ayay barnaamijkaasna markaa anfacaya meelaha waliba magaalooyinka ka baxsan ayaa isna loogu talagalay isna solar buu ku shaqeynayaa light noogama baahna waxa weeya waa teknolojiyadda casriga ee maanta markaa adduunku marayo insha allah waxaynu u soconaa markaa inaynu gaadhno in dhammaan muwaadiniinta reer somalilan o dhan 100% ay noqdaan dad wax akriya si aynu qaramada kale oo tartano aad iyo aad baan madaxweyne kusoo dhaweynaynaa waxaan runtii ku faraxsanay markaa sida qaranka u hogaaminayso insha allahu tacaala waa dabaduxeleedkii hore iska gebagabay ka dambana wax badan bay madaxweyne qaban doontaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu